shacab walba ku nool dunidani wuxuu leeyahay caado dhaqameedyo u gaar ah. Kuwa qaar waa kuwa yaab iyo ama kaag leh. Barnaamijkeena Top 5 waxaynu kugu soo gudbin doonaa 5 caado dhaqameed ee ugu yaabka badan dunida. Qorida ilkaha. Tuulada la yiraahdo Mantawin, gabdhaha degani waxay caado iyo dhaqan u leeyihiin inay qoraan ilkahooda ayagoo ka dhigaya kuwa af leh, ayagoo u isticmaalaya soofe. Waxay aaminsan yihiin caado dhaqameedkaasi inuu faa'iido u leeyahay, inuu miisaan yeelanayo ruuxda iyo jirka. Si ay ugu xasilaan mustaqbalka carruurtooda, muslimiinta degan dalka Hindiya iyo weliba kuwa Hinduuska waxay sanad walba isku yimaadaan meel fagaaro ah ayagoo carruurtooda ka soo tuuraan meelo dhaadheer sida masaajidda iyo macaabidda Hinduuska, iyagoo hoos ay u taagan yihiin dad sita go' si canuga markii la soo tuuro ay ugu celiyaan ee ugu qabtaan go'a. Waxay rumaysan yihiin caado dhaqameedkani inuu canuga u damaanad qaadayo mustaqbal wanaagsan iyo aayatiin horumar leh. gacmo gashigii wariiriga dadcunka. Qabiilka loo yaqaano Satiri Mau ee degan waqooyiga Amazon ma u aqoonsadaan carruurtooda inay yihiin kuwa mas'uuliyad qaadi kara ama awood leh ilaa inay ka gudbaan imtixaan. Waxaa loo diyaarinayaa gacmo gashi ay ka buuxaan wariiri dadcun ah, kuwaasoo dadka aad iyo aad u qaniina. Waxay gacmaha ku haynayaan ilaa iyo muddo 10 daqiiqo, waxayna intaas sameynayaan in ka badan 20 jeer maalintii barkiis, iyadoo ogsoonahay qaniinyada wariirigu inuu ka awood badan yahay qaniinyada shinnida in ka badan 30 jeer. Cabida dambasta dadka dhintay. Mid ka mid ah qabaa'ilada degan dalka Brazil iyo Venezuela markii ay meydka gubaan lafihiisa waa ay shiidaan, waxayna ka sameeyaan cabitaan ayagoo markaasi cabitaankaasi. Waxa ay rumaysan yihiin inay aad iyo aad u ixtiraamayaan qofka meydka dhintay iyo inay aad u jecel yihiin meydkaasi dhintay. U dabaaldega nadiifinta meydka. Dadka degan tuulada Tawarga ee dalka Indonesia waxay 3 sano mar soo faqaan qubuuraha ayagoo ka soo saara meydka una soo celiya gurigooda iyo goobta ay ku geeriyoodeen. Kadibna waa ay u labisaan oo waxay u xiraan dhar cusub iyo weliba kafan cusub, kadibna dib ayay ugu celiyaan qubuurahooda. Waxay aaminsan yihiin inay xusayaan awoowayaashooda iyo in carruurta la baro awoowayaashooda iyo sida ay u noolaayeen iyo qaabkay u yaaliin. caado dhaqameedkani dunidani aad bay u fara badan yihiin. Qaar ayaa ah kuwa dadka dhibaato u geysta, laakiin dadkoodii waa ay ku taagan yihiin inay si sameeyaan caado dhaqameedkaasi. Haddaba daawada, haddii aad xiiseynayso ama danaynayso inaad wax badan ka ogaato, waxaa booqataa kanaalka National Geographic Abu Dhabi People and Culture.